maalinta ay taariikhdu ahayd 3 bishii 7 2016 maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kala ah koow Cabdishakuur Guure Siyaad Calasow 40 jir ah ina isniino raage Cabdi ku dhashay Shabeellada Hoose labo Maryan Maxamed Siyaad Baraale oo loo yaqaan Batuulo 40 jir ah ina Xariimo Cabdi Cali ku dhalatay Galgaduud saddex Felis Macow Sabriye Cali 50 jir ah ina Caabiye Siyaad ku dhalatay Beledweyne kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayagoo u qaabilsanaa haynta iyo u kala gudbinta hubka ururka al-shabaab dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalada eedeysanayaasha kala ah Cabdishakuur Guure Siyaad Calasow iyo Maryan Maxamed Siyaad Baraale Batuulo ay ka hor qirteen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa in ay ayagu u hayeen hubka lagu soo qabtay ururka al-shabaab markay dhageysatay marqaatiyaashii la horkeenay maxkamadda midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda ka hor cadeeyeen in Felis Macow Sabriye Cali ay ahayd xiriiriyaha al-shabaab iyo eedeysanada labaad si ay hubka ugu hayso sidaas darteed maxkamaddu waxa u cadaatay in eedeysanayaasha sare ku xusan ay wada yihiin dambiilayaal galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay Cabdishakuur Guure Siyaad Calasow iyo Maryan Maxamed Siyaad Baraale Batuulo min 8 sano oo xabsi ciidan ah Felis Macow Sabriye Cali 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan sidoo kale maalintii ay taariikhdu ahayd 3 bishii 7 2016 maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Maxamed Cabdi Xasan Cali 22 jir ah ina Xamiido Xasan ku dhashay Xamar kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta shirqoolada laguna soo qabtay asagoo ku hubaysan bastoolad Makarov ah oo uu doonayay in uu ku dhibaateeyo muwaadiniin Soomaaliyeed dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku xusneed qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysane Maxamed Cabdi Xasan Cali oo uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa kana hor cadeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab una qaabilsanaa qaybta amniyaadka laguna soo qabtay bastoolad Makarov ah asagoo u socda howlgal amni darro ah sidaa darteed maxkamaddu waxa u cadaatay in dambiile shabaab Maxamed Cabdi Xasan Cali uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan